waxaana wanaagsan idil haantiin badaawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa bandhigga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xog lama filaan ah oo laga helay shaqsiga uu Fahad Yaasiin u dhisayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Fahad Yaasiin oo ku booday lafta gareen soona saaraya murashax u dhow mucaaradka iyo qorshahan oo aan wanaagsaneyn madaxweyne Farmaajo wararkii ugu dambeeyay qarax culus oo la eegtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho qasaaraha ka dhashay intee buu leeyahay maxaase ka jira in sarkaalkan la qaarijin rabay uu dhawaa ra'iisul wasaare Roble maxayse ka tiri xukuumaddu macluumaadyo faahfaahsan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah howlgalka cusub ee admis oo hoggaansamay amar uu siiyay ra'iisul wasaare Roble kadib markii ay bandow ku soo rogeen xarunta xalane oo dhexdeeda lagu qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka haddaba tallaabadan muxuu ka yiri madaxweyne Farmaajo qodobada kale waxaa ka mid ah mucaaradka oo ku dhawaaqay inay ka hortageen qorshe halis ah oo uu madaxweyne Farmaajo ka damacsanaa doorashada guddoonka golaha shacabka iyo madaxweyne Farmaajo amar culus siiyay saraakiil ciidan oo isaga aad u taageersan iyo madaxweyne Farmaajo fariin culus u diray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo mar kale dib loo doortay qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka bandhigga TV haddii aad inagu cusubtihiin ku soo biira shabakadan oo subscribe saarta sidoo kale ee muuqaalada sii share gareeya ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa qorshe uu diyaariyay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin kaas oo ku saabsan doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo Fahad Yaasiin laga hor istaagay inuu ka mid noqdo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya isla markaana uu isku soo sharaxo xilka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka ayaa waxaa hadda soo ifbaxaya macluumaadyo ku saabsan in Fahad Yaasiin uu dhisayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo la fahamsan yahay in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay yihiin dad aad isugu dhow isla markaana isla dejiya qorshayaasha siyaasadeed ee dalka ayaa haddana lagu soo warramayaa in Fahad Yaasiin uu hadda markaasi diyaarinayo qorshe isaga u gaar ah kaasi uu ku dhisayo murashaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka mid ka mid ah murashaxan oo xogtiisa la helay ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu yahay shakhsi aanan si weyn u taageersaneyn madaxweyne Farmaajo balse markaa ka agdhow mucaaradka inkastoo isagu uu isku sheego inuu yahay nin dhexdhexaad ah Fahad Yaasiin ayaa la tilmaamay in uu markaasi wado qorshe uu ku dhisayo murashax gudoomiyaha golaha shacabka kaas oo lagu magacaabo Shariif Cabdalla oo ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Maxamed Cabdalla ayaa la soo sheegayaa inuu hadda ka mid yahay dadka ugu cadcad inay markaasi ku guuleystaan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaana Fahad uu doonayaa in qorshahan uu markaasi ka dhabeeyo sidoo kale waxaa la sheegayaa in markaasi Shariif Cabdalla uu yahay nin aad ugu dhow mucaaradka inkasta oo uu isagu markaa sheego mar waliba inuu yahay nin dhexdhexaad ah isla markaana aan siyaasadiisa aysan dhinac jirin balse ilaha lagu kala soonaan karo ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo hadda arrintan ay markaasi si weyn isugu khilaafeen madaxweyne Farmaajo ayaana arrintan waxay u tahay mid markaasi aanan u wanaagsaneyn balse waxaa laga dhursugi doonaa natiijada ka soo bixi doonta Afisione maalinta markaasi Arbacada ah ee fooda inagu soo haysa markaan aynu eegno qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo qasaaro badan dhaliyay war dheeraad ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee Muqdisho waxaana qaraxa la sheegay in uu geystay qasaare isugu jira dhimashadii dhaawac oo aad u fara badan qaraxa waxaa la tilmaamay inuu ahaa miino markaasi la dhigay wadada dhinaceeda waxaana lagu soo warramayaa in lala beegsaday gaari uu la socday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kaasi oo la sheegay inuu aad ugu dhawaa ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble wadadaas ayuuna isticmaalayay xilliga qaraxa uu dhacayay sarkaalka la qarxiyo oo la sheegay inuu dhaawac soo gaaray ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Generaal Maxamed Xaashi Guuleed waxa uuna ka soo baxay xarunta taliska ee Villa Baydhaba wararku waxay sheegayaan in qaraxa ay ugu yaraan ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ka mid ah ilaalada sarkaalka iyo sidoo kale dad shacab ah waxaana la tilmaamay in qaraxa ay ku dhaawacmeen dad kale oo goobta ka agdhawaa qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo muddo kooban hakiyay dhaqdhaqaaqa wadadaas walow markii dambe xaaladdu si caadi ah ku soo noqotay xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay qaraxan waxaana ay cambaaraysay weerarkaas lagu beegsaday sarkaalkaas oo ay sheegtay inuu ahaa sarkaal qaran afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa waxa uu ka hadlay qaraxan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa ayuu waxa uu sheegay inuu ahaa mid markaasi uu xooshnimo afayeenka
ayaa caafimaad degdeg ah waxa uu rajeeyay Generaal Maxamed Xaashi oo qaraxa ku dhaawacmay sidoo kalena waxa uu tacsiidiyay laba ka mid ah ilaaladiisa oo qaraxa ku waxyeeloobay. Macallimow ayaa ku sifeeyay generaalka in uu ka mid yahay saraakiisha waaye aragga ah ee lafdhabarta u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana kaalin mug leh ka qaatay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa hagaag dhinaca kale haddii aynu sii egno wararkeena kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble amar uu siiyay howlgalka cusub ee ATMIS ayaa dhaqan galay. Amarkaas ayaa waxa uu ahaa in amniga xarunta Xalane aad loo adkeeyo maadaama halkaas doorasho lagu qabanayo. Waxaana howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ay soo saareen war ay ku shaaciyeen in bandow lagu soo rogay xarunta Xalane ee Muqdisho. Warka ka soo baxay ATMIS waxay ku sheegeen in bandowga lagu soo rogay Xalane uu markaasi socon doono 26 bishan oo biri ka bilaabmaysa ilaa 28 bishan aynu ku guda jirno markaasi Abriil. Teendhada Afisyooni ku taala xeyndaabka Xalane ayaa lagu qabanayaa doorashada guddoonka baarlamaanka cusub sida uu shaaciyay gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Go'aankan ayay ATMIS ku sheegtay inay qaadatay kadib markii ay la tashi la sameeyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha sidaasina uu ku amray ra'iisul wasaaruhu maadaama uu yahay hogaamiyaha doorashada Soomaaliya. Waxay sheegeen inaan loo dhowaan karin xarunta teendhada Afisyooni maalmaha ay socoto doorashada guddoonka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Sidoo kale ATMIS waxay caddaysay in howlo kale oo ku saabsan garoonka diyaaradaha aadan cadde iyagu noqon doonaan kuwa si caadi ah u socon doona inta lagu guda jiro doorashooyinka ka dhacaya xerada Afisyooni. Doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo wareejiyay Afisyooni kadib markii shaki badan laga muujiyay markaasi ammaanka xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa halkaas oo weeraro markaasi hoobiyayaal loo adeegsaday lagu qaaday xilli uu markaa dhacayay kulankii koowaad ee baarlamaanka 11aad ee markaasi Soomaaliya. Dhinaca kale mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in markaasi iyagu ay guul ka gaareen qabashada doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Kooxaha mucaaradka oo taageero ka helaya ra'iisul wasaare Roble ayaana ku guuleystay rabitaankooda in teendhada Afisyooni lagu qabto doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Mucaaradka ayaa sabab uga dhigay in ammaan darro iyo hoobiyaashii ku soo dhacay Villa Hargeysa iyo sidoo kale warar ay mucaaradku baahiyeen oo sheegayay in rasaas lala dhacay qaboojiyihii ku rakibnaa hoolka baarlamaanka ee Villa Hargeysa ay keentay in halkaa ay ku kalsoonaan waayaan. Villa Hargeysa ayaa ku dhex taal gudaha xarunta madaxtooyada waxaana mucaaradku ay markaas u arkaan mid halis ah iyo in Villa Soomaaliya ay saameyn xoogan ku yeelan karto xildhibaanada codaynaya. Taliska markaasi ATMIS ayaana iyagu arrintaasi sheegay inay la wareegeen isla markaana ay diyaar u yihiin in markaasi ay sugaan amniga halka ay ka dhacayso doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Doorashadan oo markaasi la filayo in ay qabsoomto 27 bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ah ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan natiijooyin dadka qaar ka nixin doona dadka qaarna ay markaa ku farxi doonaan. Inkastoo Villa Soomaaliya ay iyadu hadda si weyn u taageerayso gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha u taagan inay markaasi ku guuleystaan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Qaybaha ugu dambeeya ayaynu isla soo gaarnay. Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu war ka soo saaray doorashadii ka dhacday dalka Faransiiska wuxuuna hambalyo u diray madaxweynaha dalkaas ee dib loo doortay Emmanuel Macron. Farmaajo oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin doorashada ka dhacday Faransiiska iyo guusha uu ka gaaray Emmanuel Macron. Sidoo kale Farmaajo ayaa xusay in Soomaaliya ay la shaqayn doonto madaxweynaha ee dib loo doortay ee Faransiiska isagoo markaasi guul u rajeeyay. Qoraalka madaxweynaha ee loogu hambaliyay Macron ayaa sidoo kale lagu sheegay in wadamada Faransiiska iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan iyo sidoo kale iskaashi soo jireen ah sida markaasi uu tilmaamay madaxweynaha Soomaaliya. Doorashada Faransiiska oo shalay markaasi loo dareeray wareegga labaad ayaa waxaa mar kale guul soo hooyay Macron kadib markii uu ka adkaaday haweeneyda xisbiga midigta fog ee markaasi la yiraahdo Marine Le Pen. waxaana madaxweyne Farmaajo uu isaguna sidoo kale rajaynayaa in mar kale dib loogu doorto talada Soomaaliya inkastoo sanadkan uu wajahayo cadaadisyo xoog leh iyo in markaasi uu dareemayo in aanan aad loo taageersanayn.
intaas ayuu ku dhan yahay warkii ood kala socoteen shabakadda Bandhiga TV warkan war la mid ah intaanu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo